asalaamu calaykum asxaabi filinkeena maanta wuxuu ku saabsanyay laba sirdoon oo indiyaana iyagoo loo diri doono shaqo adag iyo howlgala aad iyo aad u halis badan magaciisuna waa woor asxaabada sabskribta aan weyda ninka dagaal ayna dhex maraya haddaba filinkeenu waxuu ku bilaabanaya magaalada delhi waxaan u jeednaa nin la soo hadlaya kabiir isagoona ku odhanaya waa inaad ninkaa dishaa waayo dad badan ayaa u laayay dabeeta diiradda ayaa u saaraya islamarkaa waxau arkaya ninkii isaga balamiyey waana u dilayaa maalinkii xigay waxaanu tegaynaa wasaaradda difaaca hindiya islamarkaana waxaan arkanaa iyadoo loo sharaya kabiir iyadoo la leeyay waxa uu noqday cadowga waa in kala dilaa waxaynu tegaynaa malta islamarkaana waxaan arkaynaa gaangiska ganacsanaya daraagiska waxaan usoo gelaya khaalid waanu laynayaa waxaynu u jeednaa khaalid inuu ka tirsayay sirdoonka hindiya islamarkaana markuu raggii laayo waxa uu qabsanaya telefoon waanu la hadlaya waxaanu kuna waan dhameeyey maalinkii xigay waxaan arkaynaa khaalid oo yimaaday xafiiskiisii shaqada islamarkaana waxuu arkaya iyadoo laga hadlaya saaxiibkii kabiir waxaana la leeyahy waa in ninkaa lasoo qabtaan waxaanu soo xasuusanaya 2 sano ka hor wixii dhacay khaalid islamarkaa iyadoo lagu odhanay adiga ayaa lagu xilsaaray kabiir hawshiisa waxaynu u jeednaa 2 sano ka hor wixii dhacay maalmaha ka mid a ayaa ay lakabtir soo degaysaa islamarkaa waxaa kasoo degay lakabtantan kabiir iyo ciidankiisii taliyahoodiina ayaa ku odhanaya waa inuu khaalid ciidanka kusoo biira islamarkaa kabiir waa uu diidayaa islamarkaa khaalid aabiyi waxau ahaa burcad gacanteyda ayaan ku dilay khaalid ayaa la hadlaya islamarkaas uu khaalid ku leeyay aabahay hadduu burcad ahaa anigii aabahay qasamayna isku mid noqonaa dibtaliisa ayaa khaalid la hadlay waxaanu ku odhanaya wax la doonaya in lagu tijaabiyo waa inaad adkaysaa islamarkaana shaqa ayaa loo diraya waxaana la doonaya lasoo qabta nin u shaqeeya ilyaas uu tusaya nin u shaqeeya ilyaas waxaana uu ku odhanaya dee ninka soo qabano waxay noo fududaanaysaa inaynu ogaano halka uu jooga ilyaas khaalid ayaa usi xun weegaya waa khaalid kuma kalsoonaa maalinta ku xigtay waxaanu joognaa ciraaq iyagoo aad isku qarnaya aynu arkaynaa islamarkaana waxay arkayaan gabadh aad iyo aad loo dilay waanu ka xanaaqayaa gabadhii ninkii dilay waa uu dilay islamarkaana waa lasoo xidhxidhaya waxaana lagu odhaya ku badbaadin GPRskiisa ayaa useexo ku dhahay asxaabtaada ku badbaadiso islamarkaa waxaan arkaynaa isagoo GPRs kale afku haysta waanu tufayaa khaalid ayaa imanaya meeshii waxaana uu laynayaa dhammaanba asxaabtiisa hal adagoo ninkan dhex maraya waa ay ka guulaysanayaan islamarkaa ay ka guulaan waa ay ka soo baxayaan khaalid waxa uu imanayaa hooyadii isagoo aad iyo aad u faraxsan hooyadiina hadiyad ayaa u keenaysaa islamarkaana waxay ku odhasay inankaygu wiil wanaagsan ayaad islamarkaa waxaan ujeednaa kabiir iyo khaalid oo wada sheekaysanaya waxaana uu ku odhanaya isha midig waxba kama aad arkayn maxaa kugu dhacay waxaana ugu darayaa iminka laga bilaabay inuu shaqada sidaas kaga tegay khaalid ayaa la hadlaya waxaanu u sheegaya yaraantiisii inay asxaabtiisu isugu tegeen islamarkaana isha wax ku dhufteen maadaamuu aabihii khaayin ahaa wadankana dembi badan ka galay khaalid ayaa la hadlaya waxaana uu ku odhanaya waxaan doonaya inaad iga saarin ciidanka kabiir ayaa ku odhanaya maanta wixii ka dambeeya waxaan kugu soo daray ciidanka isagoona si caadi ah ula hadlaya islamarkaa waxaan u jeednaa maalintii dambe ciidankii oo isku wada yimaaday markaa waa ay wada hadlayaan waxaanay diyaar u noqonayaan sidii ay u tegi lahayn maalinta xigtay Morocco waxaana imanayaan Morocco si ay u soo qabtaan Ilyaas waxaan u jeednaa Ilyaas oo meeshii yimaaday islamarkaana hareeraha ayaa ay ka yaacayaan Ilyaas filinka waa uu ka soo baaraan tagay waxaana uu ku odhanayaa kurriyoona inaad qabataan islamarkaa midiga ka mid ah ayaa jaajuusiya ciidankiina laynaya kadib Khaalid waxuu isku dhigaya xabad lagu soo waday kabiir islamarkaa markuu xabadda isku dhigay Khaalid xabaddu way ku dhacaysaa kadibna waxuu baacsanayaa ninkii khiyaamay islamarkaana waa uu eryanaya islamarkaa waxaan u jeednaa kabiir oo dadkii wada laynayaan dadkii wada lay xabad ayaa ku dhacaysa kadibna waa u dhacaya waana suuxaya kadib dhowr casho kadib waxaan arkaynaa iyadoo uu kasoo kacaya dhakhtarka waxaan u jeednaa saaxib kabiir oo koomadii kasoo kacay waxa uu arkaya asxaabtiisii oo dhammaan la laayay waana uu ka xumaanaya kadib waxa uu arkayaa Khaalid oo dhawaca waana lasoo qaadaya kadib Khaalid ayaa ula hadlaya wuxuu ku odhanaya ninkii madishii Khaalidna waxau ku odhanaya haa waan dilay waxaan u jeednaa kabiir oo jooga talyaaniga waxaana ula joogaa gabadh uu jecel yahay ujeednaa inuu nin dabagal ku hayo islamarkaana ninkan waxa uu ogyahay meesha uu jooga Ilyaas kadib waxa uu maqlayaa isagoo leh 4 nin ayaa la shaqeeya 4 nin waxay la shaqeeyaan Ilyaas aad iyo aad ayaa uu naxaya kadib waa uu yaabaya waxaan uu imanayaa gabadhu jeclaa waxa uu ku odhanaya waa inay ninka Fayruus u tagtaa iyaduna waa ila hadlaysaa waxay ku odhanaysaa inan ayaan dhalay kadib waxa uu ku odhanaya inantaa dhashay aniga ayaa ku ilaalinaya waxaan u jeednaa saaxiib gabadhii uu jeclaa kabiir oo u tagtay Fayruus islamarkaana waa ila hadlaysaa kadibna waa uu soo dhaweynaya waxaan arkaynaa laabtoonkii iyadoo u gelinaysa falaash islamarkaa saaxiibayaal kabiir oo wax walba la socdaya oo hal mar kool soo gelaya waana uu qabanaya kadibna waxaa loo sheegayaa inuu ninka Fayruus yahay ninkii la daydeeyey waxaana uu bedeshaa wejiyada waxaana lagu sameeyey qalliin waxaana uu arkayaa gabadhan oo ula hadlay sidii uu nin uu yahay Ilyaas kadib waxa uu ogaanaya in loo sameeyey qalliin wejigana uu bedeshay islamarkaa waa uu yaabaya ninkan wax walba waa uu ogaanaya kadibna gabadhii barta ayaa uu ku dilaya meydkeedana waa uu kusoo tuuraya ujeedna kabiir oo u yimaaday waxaana uu daminayaa indhaha kadib waa uu ka tegayaa waxaanu la soo hadlayaa gabadha waxaanu ku odhanayaa qofkan sirtayna sheega waa inaad isoo sheegtaa kadib ninkan ayaa ay u soo sheegaysaa iyaduna waxa uu ku qabanayaa xabadkii koowaad halkaas ayaa uu ku dilayaa kadib waxa uu odhanayaa waa inaad kuwa kale isoo sheegta maalintii dambe waxaan u jeednaa kabiir oo helikabtar kasoo daba raacay diyaaradan kadib waa uu kusoo boodayaa kadib waa uu ku guulaysanayaa inuu diyaaradan gudaha u soo galo islamarkaa waa uu laynayaa wixii ciidana
saarnaa. kadib waxaynu u jeednaa inuu ka guulaystay dhammaan ciidankii waanu dilayaa ninkii labaad. kadib waxa uu ka tuurayaa diyaaradii ninkii labaad ee qaayimay. kadib waa kasoo boodayaa diyaaraddiina halkaas ayaa ay ku qarxaysaa. maalintii dambe waxaynu u jeednaa taliyuu la hadlay Khaalid islamarkaana kule ninka waa inaad soo qabataa. Khaalid waa uu ka ballanqaaday waxa odhanaya anaa soo qabanaya. kadib waxuu soo garayaa tareenka waxaa arkayaa Kabiir oo daba taagan islamarkaa waa uu yaabaya. hal mar ayaana uu waayaya Kabiir islamarkaa markuu hal mar waayo waa uu diidayaa. kadib waxa uu arkayaa isagoo raacay tareenka kale waxaana ugu dhajinaya warqad waxaana ku odhanaya digtoorka ayaan dilay igacayg. maalintii dambe digtoorka ayaa uu ku odhanaya waa lagu dilay naftaaduna halis ayay ku jirtaa waa inay ilaaladaada xoog bataan. kadib digtoorka taleefon ayaa uu qabsanaya waana uu ka tegayaa. kadib digtoorkii gawadhidiisii ayaanu arkaynaa hal mar iyadoo lasoo weeraray. gawadhidii ka horreeyay ayaa gubanaya. kadibna waxaan arkaynaa diyaaradu timaado oo digtoorkii lasii baxaysa. hal mar ayaa uu soo weeraraya Kabiir waxaana uu leynayaa raggii islamarkaa waxa uu imanaya digtoorkii waxaana uu ku odhanayaa qofka kaa xiga ii sheeg. waxaynu u jeednaa Khaalid oo isla xabad ku dhufo. kadib waxauu ku dhufanayaa digtoorkii waana is ariyanayaan. kadib mootooyin ayaa iska daba kaxaysanayaan waxaana isku ariyanayaan magaalada. islamarkaa hal mar ayaa uu Kabiir ka badbaadaya. biriishkan ayaa uu iska tuuray waana la waayaya. waxaynu u jeednaa taliyahoodii oo Khaalid canaanay islamarkaana kula Kabiir waxa uu la baxsaday baasuulka nuclearka aduna shaqada hadda ka tagtay aad ayaa uga xumaanaya Khaalid. markaa Khaalid kombiyuutarka ayaa uu kala furaya waxaana uu ogaanayaa wax walba. islamarkaa hal mar ayaa uu Kabiir ugu imanaya meesha uu joogay. Kabiir waa uu yaabaya siduu kusoo helay meesha uu joogo. islamarkaa markuu yimaado kadib waa israacayaan wax walbana waa uu sheegaya waxaana ku odhanaya qaliin ayaa wejiga marsaday. kadibna waa isla isagii. kadib hal mar ayaa lasoo weeraraya waana iska calilaya. raggiina waa ay leynayaan saaxiibayaal. kadib si xirfadla ayaa meesha uga soo yaacayaan iyagoo dadkii wada laaya. kadib waa ay gubanaysaa. maalintii xigtay waxay la kulmayaan DT oo aroosanaysa waxaanay u keenaysaa canjal waxaanay ku odhanaysaa wax walba halkan ayaa ay ku jiraan. waxaanay ku odhanaysaa waa inay gantaalka ciyaan dhammaasay u baabiyaan xuduuda Hindiya. kadib waxay u dhiibaysaa baasuudhkii. maalintii xigtay waxaynu arkaynaa iyagoo doon saaran islamarkaana khamri cabaya. hal mar ayaa uu Kabiir xanuunsanaya waxaanu ogaanaa in sun lagu daray khamriga. kadib Khaalid ayaa la hadlaya islamarkaana isagoo u sheegaya wax walba waxaana ku odhanaya waxaana ninkii afraad daydaysay wejigan anigaa bedeshay. markaan arkay Khaalid oo daba cararay oo islaynaya ninkii jaajuuska waxaan ogaaday Khaalid oo sii jeeda. kadib xabad ayaan ku dhuftay. halkaa iyadaana waxaan ku dhiganay qorshe cusub. kadib digtooradii ayaanu tagnay waxaan ku nidhaanay waa inaad qaliin lagu samaysaa wejigan aadiga bedesha. islamarkaa hal mar ayaa qaliin laygu sameeyey. kadib waxaan tagay badda dhexdeeda waxaana laygu dilay. hal mar ayaa xabad dhabarka layga dhuftay si ay soo qaadaan askartuna waa ay soo qaadeen. waxaynu jeednaa Khaalid oo Kabiir ku tuuraya badda dhexdeeda islamarkaa markuu badda ku dhex tuuro. maalintii xigtay waxaynu arkaynaa doon meel barafaa dhex socota. kadib waxaa soo galaya Khaalid waxaana odhanaya gantaalka waa in la ridaa. kadib hal mar ayaa uu Kabiir soo korayaa doontii waxaana uu imanayaa doontii. kadib si khatarla ayaa uu leynayaa dhammaan shaqaalihii ilaalinaya askartii ilaalinaysa. hal mar ayaa uu Khaalid hadlay waxaan ku aniga ayaa ku dilay maxaa ku dhacay. Khaalid wax walba uu sheegayaa Kabiir islamarkaa waxaan u jeednaa Kabiir oo la hadlay Khaalid waxaana uu ku odhanaya wax walba waan ogaa maalin ayaa laysoo wacay waxaana laygu yidhahdo qof ayaa sun la baxay. kadib waan ogaaday filinka waanan iskaga tegay. canjaladii aan kuu dhiibayna waxay ahayd canjalad feega oo GPRS kuugu xidhayaan doonayay meelshaad maraysa inaan ku ogaado khamriga markaan cabayna waxaa iska dhigay qof cabeen. maalintii aanu dagaalka ku jirnay waxaan ogaa inaanu Khaalid isha midig waxba ka arkin. kadib doontii ayaa uu ku dhacayaa gantaalkii. doontiina waa ay gubanaysaa. waxaan u jeednaa iyagoo gawaadhi barafkii isku dhex aryanaya labadoodu. doontiina halkaas ayaa ay ku gubanaysaa islamarkaa iyagoo gawaadhi isku aryanaya oo hal mar ku dhufanaya gurigan ayaa ay isla gelayaan. kadib waa ay soo degayaan halkan ayaa ay ku wada dagaalamayaan labadoodu si xirfadaysan ayaa ay isku leynayaan midka kale kama xoog badnaa. ugu dambeyntii waxaan u jeednaa Kabiir oo ka guulaystay Khaalid islamarkaa waa uu kasoo baxayaa. Khaalid hooyadiina waa ay u ducaynaysaa wiilkeed waxaana la siinayaa shahaado. kadib waxaan arkaynaa Kabiir oo halkaa ka daawanaya. kadib taliyaa la soo hadlay waxaanu ku odhanaya waxaan ku hayaa qorshe kale mishin kale waa inaad soo dheeraysaa. aad iyo aad ayaa lagu baahayay saaxiibayaal filinkan intaasuu ku eegay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fiidiyogana like saar adigoo subscribe noo taabanay saaxiibayaal.